السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالوا كسر هذا القناة كأنه فضنا هدية نقص سبسكرايب إنه هدات رونالدو كان شير لايك كومنتك وين ودير قلين إن ما أنتم waxaan ka hadlaynaa sida aad u jeedaan waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka ay hooyada uurka u leedahay avocado aad ayaa u naqaanaa inta badan dadkeena aad bay u yaqaanaan oo aad bay u garanayaan marka avocadada faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay hooyada uurka leh marka hore waa nutrition buuxa ama waa nafaqo buuxda waxaa ku jiro calorie ayaa ku jiro waxaa ku jira maxay heetood aad u fara badan sidoo kale waxaa ku jiro protein ku jiro minerals ayaa ku jiro vitamins ayaa ku jiro aad ugu wanaagsan hooyada iyo maxay heetood uurjiifkaba marka faa'iidooyinka ay u leedahay hooyada uurka leh healthy fat hooyada waxay noqonaysaa mid aad u jir qurux badan leh jirkeeduna oo cayil fara badan aan lahayn caafimaad oo maxay heetood caafimaad jirkeeda wuxuu u muuqanayaa mid caafimaad qaba sidoo kale waxay ka caawinaysaa digestingka ama calool fadhiga ayay ka caawinaysaa sidoo kale oo dheefshiidka ayay caawinaysaa dheefshiidka hadduu si wacan u shaqeeyana constipation ma dhacayo ama calool fadhi ma dhacayso sidoo kale wuxuu ka caawin doontaa hooyada uurka leh morning sickness waxa la yiraahdo ama xanuunka subaxdii hore hooyada qabta xilliga uurka waliba markuu bilbilowga yahay subaxdii waxyaabo fara badan ay iska dareemaysaa waxyaabahaas ay ka hortagtaa sidoo kale waxaa ka buuxa antioxidant waaye oo jirkaada ayaa sunta ka difaacaysa waxyaabaha kugu soo socdo kaleeto oo banaanka kaaga imaanayo kaleeto adi antioxidant waayo jirka ayuu difaac u tahay sidoo kaleeto waxay daaweysaa anemiyada waayo vitamino fara badan ayaa ku jiro potassium ayaa ku jiro folate ayaa ku jirto marka lama soo koobi karo faa'iidooyinkeeda anemiyadina way ka hortagtaa sidoo kaleeto waxay ka hortagtaa leg cramps waxa la yiraahdo ama lugu xanuunka yacni hooyada markay uur leedahay waxay dareemtaa lugaha inay xanuunayaan oo kaleeto ayay dareentaa marka aad ay uga hortagtaa marka lugu xanuunka ayay daawo u tahay sidoo kaleeto waxay aad u horumarisaa ama development vital brain development waxay aad u horumarisaa uurjiifka maskaxda uurjiifka wax walba Allah ayaa ku shaqo leh laakiin aad ay u horumarisaa sidoo kaleeto waxaa aad u yar inay hooyada noqoto weight gain hooyada ma noqonayso baashaan hadday isticmaasho waa qudaar isku dheeli tiran sidoo kale waxay yareysaa diabetiska ama sokorta kaleeto hooyada markay uur leedahay sokoraa ku dhici karto dhiig yaraa ku dhici jiro Allah naga haye aad ay ugu hortagtaa ama way yareysaa riskigaas oo kaleeto sidoo kaleeso waxaa aad u fudud avocadada inaad ku darsato cuntadaada marka ha lagu dadaalo gabdho soo yaaca insha Allah waxyaabo fara badan ayaa naga faa'iidi doontaan insha Allah